وصباحنimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay 26 bisha afraad sanadka 2019 warkaas oo dhan saakay waxa aqrinaysa wariyaheena Maryama Cabdulla Xasan aad iyo aad u mahadsan tahay Cali Ibrahim Cabdullaahi subax wanaagsan jimca wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhan ku soo dhawaada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada xooga ku leeyihiin duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dagaal ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Sabiib waxaana dhawaan halkaasi la wareegay ciidamo ka tirsan kuwa xooga Soomaaliya Axmed Abuukar Sabriye wariyaha Shabeellaha Hoose radio kulmiye uga soo waramayaan arrintaani ka wareysanay aad baad u mahadsantahay Caliyo sabri dhexe xalay xubno ka tirsan Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa darab ku leeyihiin deegaanka Sabiib oo Brexit ah degmada Afgooye dhawaan ay ciidamadu kala wareegeen deegaankaas iyo deegaano kale oo duleedka ka ah Afgooye Al-Shabaab dagaalka oo muddo socday waxaa la soo sheegayaa in la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan oo kuwa culus ay u badan yihiin iyadoona hubkaas dagaalka la isku adeegsanayay ay markaasi dad deegaano dhaca duleedyada deegaanka Sabiib ku sugan ay soo sheegayeen in si aad halkaasi looga maqlayo hubka madaxweynaha la isweydaarsanayay dagaalka oo socday wax ka badan nus saac ay dadka deegaanku xaqiijiyeen in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac balse aan la kala xaqiijin karin dhinacyada halkaas ku dagaalamay xalay ee shabaab iyo ciidamada dawladda waxa sida rasmiga ah u soo gaaray ma jiraan wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ku faahfaahinayo dagaalka ilaa hadda ma jiro Caliyo wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka xiriir kala duwan oo aan la sameynayna waxa aan inoo suuro gelin inaan markaasi haleelo balse Al-Shabaab dhankooda warar ay markaasi baahiyeen iyaguna ay ku daabaceen baraha taageero waxa ay ku sheegteen in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta saldhigga ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Sabiib oo duleedka ka ah Afgooye balse saraakiil militariga ka tirsan oo Sabiib ku sugan oo aan la xiriiray waxa iyaguna waxba kama jiraan ku tilmaameen wararkaas Axmed Abuukar Sabriye wariyaha Shabeellaha Hoose radio kulmiye aad u mahadsan yahay dhageystayaal markaan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa xalay waxa ay baaritaano ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir baaritaanka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafada buundooyinka oo ka tirsan degmada Waaberi goobjoogayaal ayaa keenan u sheegay in dad badan lagu soo qabqabtay baaritaankii xalay ee ciidamada booliisku ka sameeyeen degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Waaberi iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliya maalmihii dambe ay ciidamada booliiska Soomaaliya waxa ay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayagoona dhalinyaro badan ku soo qabtay howlgalkaasi ay sameeyeen maxkamadda sare ee dalka ayaa aqbashay qaadid dacwo ay wasiiro hore oo ka tirsanaa Hirshabeelle ka gudbiyeen madaxda sare ee maamulkaasi Hirshabeelle Farxaan Maxamed Xuseen ayaa inooga waramaya maxkamadda sare ee dalka ayaa waxay aqbashay qaadista dacwad ay gudbiyeen qaar ka tirsan wasiiradii hore ee maamulka Hirshabeelle kuwaasi oo ka gudbiyay dacwadda madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle wasiiradan ayaa waxay tiradooda gaaraysaa ilaa iyo 11 wasiir kuwaasi oo madaxda maamulka Hirshabeelle ku eedeeyay in ay ku dhaqaaqeen musuqmaasuq baasan isla markaana ay ku leeyihiin lacag far badan Xuseen Cismaan Cilmi oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Hirshabeelle isla markaana la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wax uu ka warbixiyay dacwadda ay ka gudbiyeen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle isla markaana ay aqbashay maxkamadda sare ee dalka isagoona sheegay in toddobaadka soo socda ay bilaabanayso dhageysiga dacwaddaasi team golo wasiir ah oo aan heenno muddo shaqeynay 15 bilood ah oo aan wax xuquuq ah helin sidaas daraadeed marka xuquuqiyaadkii aan lahayn si sharci ah ku raadinayni marka adiga kulli dacwada waa sameeyay dad waa gudbinay abukaataan qabsanay abukaatina dacwadii waa la wadaagay legal notice wajigii hore uu bixiyay madaxdii adeer Shabeellana ay ka soo jawaabi waayeen kadibna waxa loo gudbiyay maxkamadda sare dadka maxkamadda sare ayuu yeelaa wakiilo ama soo dirsadaan ama ayaga ay ka soo qayb galaan intaas dhimanad way aqbashay kulli warqadan isniintii soo saaraysa dawladda markii warqada ay soo saaraan warqadaas waxa waaye waa wixii cadeynaysa inay furan tahay
invitation waa loo diraa inay dacwadaas taalla marka inay kasoo jawaabaan. haddii kasoo jawaabi waayaan hadda wax u yeelo waaye, qaranka u yeelo waaye. Hirshabelle waxa waaye waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka ka tirsan tahay maxkamadda kale hadda oo wadankan maxkamadda sare ka sareyso oo qofka markuu xuquuqdiisa oo siyaasiga ah uu waaye ama wixii kale uu lahaa uu waaye meel kale la aadi kara malaha. marka cidda keliya oo la rabo inay go-aankeeda qaadato oo jawaabtii ka jawaabto waxay noqonaysaa maalka. laakiin annaga isku dayga aan leenahay wuxuu yahay in aan wax xuquuqdaas naga maqan xuquuq naga maqan tahay sifadaas sharcigana aan ku raadin. way naga go-an tahay inaan kiiskan ilaa iyo maxaa meeshii ugu dambaysa aan la gaarin. ma wasiirada dabcan waa wasiiradii wasiir ku-xigeenada. wasiirka waxa waaye waa mishaarkiisa waa 2,000 oo baarlamaanka uu ansixiyey. madaxweynahan oo warqad kusoo saaray oo cadeeyay inay xuquuqdaas jirto. wasiir ku-xigeenadii wasiir dowlayaashana ayagana waa 1,500 ay leeyihiin. marka la isku daro 15 bilood intaas lagu dhufto waxaa dareemi kartaan lacagta maqan iyo xuquuqda maqan intay la eg tahay. marka waxa la raadinayo waa waxa wasiirada inta badan horta xilalka laga qaadiyo dhan way wada qabaan. laakiin hadda annaga kiiskan waxaan ku nahay 11 wasiir marka hore ku ahayn. laakiin hadda ilaa hadda macnaha kiiskan dadka ay ka go-an tahay inay wadaan waa 11 kan. madaxda sare ee maamulka Hirshabelle ayaa waxaa inta badan lagu eedeeyaa sida la sheegay in ay mushaar siin mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle oo ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada maamulkaasi, iyadoona haatan dacwad arrintaasi la xiriirto ay ka taalo maxkamadda sare ee dalka madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabelle. kulamo aan caadi ahayn ayaa waxa ay ka soconayaan magaalada Garowe ee gobolka Nugaal oo u dhaxeeya xildhibaano waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland. kulamadan ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo shalay gaaray magaalada Garowe. waxa ayna xildhibaanada halkaasi u tagay sidii ay u dhameyn lahaayeen khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. xildhibaanka shalay gaaray Garowe ayaa sidoo kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay faragelin ku hayso doorashooyinka dowlad goboleedyada iyagoo la tusaale u soo qaatay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay sheegeen inay faragelinta xukuumaddu ay ku sameysay ay ka dhalatay dhibaato iyo fidno lagu hayo ama lagu laayay dad aan waxba galabsan. dhanka kalena maamulka Puntland ayaa sheegay in gargaar caafimaad oo degdeg ah ay gaarsiinayaan deegaanka Taleex ee gobolka Sool kadib markii halkaasi uu ka dhacay ama uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya. iyadoo cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay degmada Taleex oo kamid ah degmooyinka hoostaga gobolka Sool, haddana waxaa isa soo tarayay qayladhaanta dadka ka soo yeeraysay taasi oo ku aadan in wax laga qabto dhibaatada cudurka oo ku baahayay deegaano hoostaga degmadaasi. shirkii golaha wasiirada uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa diiradda lagu saaray wax ka qabashada xaaladda cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay degmada Taleex. dadka uu soo ritay cudurka ayaa la jiifiyey cisbitaalada ku yaala degmada Taleex halkaas oo dhaqaatiirta caafimaadku ay la daaladhacayaan. ha yeeshee xubnaha golaha wasiirada ee ku shiray madaxtooyada magaalada Garowe ayaa soo saaray in gurmad caafimaad oo degdega la gaarsiiyo degmada Taleex ee gobolka Sool, iyadoo halkaasi loo diray koox dhaqaatiir caafimaad oo la sheegay inay xilligan la tacaalayaan dadka cudurka uu ku dhacay. wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland Cali Xasan Axmed Sabarey oo markii shirka uu soo dhamaaday kadib la hadlay warbaahinta ayaa sidaan u sheegay in Puntland ay ka jawaabtay gurmadka degdega ah ee la gaarsiinayo degmada Taleex ee gobolka Sool kadib cabashada dadka deegaanka ee ku aadan dhibaatada cudurka shuban biyoodka. wasiirka ayaa intaasi ku daray in markii gurmadka caafimaadka la gaarsiiyey degmada Taleex ay xaaladda dadka cudurka uu ku dhacay iminka ay soo hagaagayso. xaalad ka soo cusbanaatay Taleex degmada Taleex oo shuban uu ka dhacay. wasaaradda caafimaadku si degdeg ah uga hawlgashay, 2 tiim bay u dirtay. maanta warbixintii ay ka bixiyaanna xaaladda gacanta ayaa lagu hayaa. dadka intoodii badnaydna waa ladan yihiin ilaa meel 8 qof iyo 10 qof iyo meel 9 qof ayaa weli la sheegay inay xaaladaas ku jirto. waxaa loo geeyey waxyaalo xalaale wixii ay u baahnaayeen ku saabsan arrintaas.
cudurka ayaa ka dhashay biyo washaqaysan iyadoo xilliga kuleelaha lagu jirana ay dadka deegaanka sheegeen in dhibaatada ugu daran ay kaga timid kuleelka xilligan iyo biyaha meelaha baliyada ku jira oo dadka deegaanka ay si aada u isticmaalaan. Ha yeeshee waa markii ugu horreysay tan iyo markii xilliga kuleelaha la galay in cudurka shuban biyoodka uu ka dilaaco degmada Taleex ee gobolka Sool. cumar maxamed soomane dhegeystayaal aad ayuu u mahadsan yahay. warka subaxee radio kulmiye ayaad la socotaan niminkan akhbaaraadka dibadda. tan iyo markii uu dabku qabsaday kaniisad ku taala Baariis ayaa waxaa iska soo daba dhacaya deeqaha ka imaanaya dunida dacaladeeda si loo soo celiyo qaab dhismeedkeedii iyo maamuuskeedii hore ee kaniisadda. dadka caadiga ah iyo maalqabeeno balaayiin doolar haysta ayaa ku yaboohay ugu yaraan 835 milyan oo doolar 10 cisho kadib markii ay kaniisaddu gubatay. qiimeyn hordhac ah oo ay sameeyeen dhaqaaleyahano dhanka dhismaha ah ee Faransiiska ah ayaa tilmaamaysa in deeqaha lagu yabooho ay aad uga badnaan karaan dhaqaalaha dib loogu dhisayo kaniisadda. dadka dhaliilsan dhaqaalaha faraha badan ee lagu yaboohay ayaa qaba aragti ah inay fiicnaan lahayd in dhaqaalahaasi meel kale lagu bixiyo, balse dadka aruurinaya lacagtaasi ayaa dib u dhiska lagu sameynayo waxa ay dadka ku boorinayaan in ay sii wadaan deeqa bixinta ayagoona sheegay in aanay weli fari ka qodnayn. guud ahaan dhegeystayaal intaa waxaa ku dhan warkii subaxoo saako jimcaha aad kala socoteen radio kulmiye muqdisho Soomaaliya. cidii warkiina sheego waxay dib kaga heli karaan isagoo maqal qoraal sawirro intaba uu tabartaynu internetka ku leenahay ciwaankeenu radiokulmiye.com ama radiokulmiye.net. dadka ku sugan magaalada Beledweyne waxay naga dhageysan karaan radio Wadani, Galgaduud gaar ahaan Cadaado waxay naga maqli karaan radio Cadaado, Gaalkacyo waxay naga dhageysan karaan radio Hayaan, Mareykankana Kala FM live stream iyo sidoo kale Facebook live ayaad nagala socon